Daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Maxay tahay sababta saldhigga garoonka loo hoosgeeyay taliska qaybta guud? Jubbaland oo war xasaasi ah ka soo saartay ciidankii dowladda federaalka Soomaaliya ee geysay gobolka Gedo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo si la yaab leh ugu farceliyay shirka uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo. Somaliland oo maanta laga bilaabayo qaadashada talaalka COVID-19. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cismaan Dubbana waxa uu ka hadlay xaaladda dalka waliba doorashooyinka iyo sidoo kale COVID-19. sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay wakaaladaha caalamka ee ka qorayaan arrimaha Soomaaliya. Haddii aynu ku bilowno wararkii aad maqasheen faahfaahintooda iyo sidoo kale dowladda federaalka oo guud ahaan hakisay waxbarashadii dalka iyo sidoo kale iyadoo ka hadashay doorashooyinka dalka. Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Cismaan Dubbana waxa uu ka hadlay xaaladda dalka waliba doorashooyinka iyo sidoo kale COVID-19. Cismaan Dubbe ayaa sheegay in fasaxii dowladda horey waxbarashada ay u siisay sidoodii ay ku celiyeen 2 isbuucna waxbarashadii ay sii fasaxnaan doonto halista COVID-19 darteed. Cismaan Dubbe ayaa sheegay in go'aamadii dowladda ay soo saareen sidoo kale talooyinkii wasaaradda caafimaadka ay sidoodii yihiin wax walba COVID-19 sidii looga hortagi lahaana ay diyaar hadda u yihiin. Cismaan Dubbe ayaa dhanka kale ka hadlay xaaladda doorashooyinka dalka asagoo sheegay in doorashooyinka dalka ay muhiim tahay xilligan in la dardargeliyo mucaaradka ayuu ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha dalka. Cismaan Dubbe ayaa sheegay in ceeb iyo wax laga xumaada ay tahay madaxdii dalka ugu sareysay inay hogaamiyaan in dalka doorasho aysan ka dhicin mansabka ugu sareeya dalkana ay soo qabteen. ugu dambeyn maxkamadda Hague ayuu sheegay in rajo wanaagsan laga qabo dacwadda in laga soo saaro natiijo ama go'aanka ugu dambeeya ay soo saarto maxkamadda Soomaaliya ay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa saldhigga garoonka diyaaradaha hoosgeeyay taliska guud ee gobolka Banaadir kaas oo markii hore ahaa mid ka madax bannaan. Warqad ka soo baxday taliyaha booliiska ayaa lagu sheegay in haatan wixii ka dambeeya saldhigga garoonka uu ka mid noqon doono saldhigyada booliiska ee gobolka Banaadir. sidoo kale talaabadan ayaa ka dhigan in awoodda magacaabista iyo xilka qaadista saldhigga garoonka uu leeyahay taliska booliiska gobolka Banaadir. Ma cadda ilaa hadda sababta rasmiga ah ee ka dambeysa talaabada uu qaaday taliyaha booliiska ee saldhigga garoonka lagu hoosgeeyay taliska qaybta guud, balse wararka qaar ayaa sheegaya in dana siyaasadeed laga leeyahay arrintaas. Si kastaba arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii dambe dhaqdhaqaaqyo xooggan laga dareemayay xerada Xalane oo uu ku yaalo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Muqdisho. Jubbaland haddaan eegnano war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Jubbaland ayaa si kulul looga hadlay ciidamadii ugu dambeeyay ee shalay dowladda dhexe ku daabushay qaybo ka mid ah gobolka Gedo oo dhaca koonfurta Soomaaliya. Qoraalka Jubbaland ka soo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in ay nasiib darro tahay in dowladda ay ciidamo iyo hub geyso gobolka Gedo oo ay xilligan abaari ka jirto. Jubbaland ayaa sidoo kale intaasi ku dartay in xilligan oo lagu jiro marxalad kala guur ay tahay ayaan daro aad u weyn in colaad laga sii horinayo gobolka Gedo. sidoo kale Jubbaland ayaa shaaca ka qaaday in wixii mas'uuliyad ah ee ka dhashay dhaqdhaqaaqyadaasi uu qaadan doono madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday sida hadalka ay u dhigeen. haddaba Jubbaland waxay cadeynaysaa mas'uuliyadda wixii ka dhashaa gulufkaas colaadeed uu qaadan doono ama uu yeelan doono madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayna noqon doonto xadgudub aan weligiisa ka harin ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland. ugu dambeyn Jubbaland ayaa sheegtay in la iska indhatirayo baaqyadii hore ayna arrintan caqabad ku noqon doonto heshiisyadii la gaaray iyo wadahadallada hadda socdaba. dhanka kalena Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka hadlay shirka uu mar kale ku baaqay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday kaas oo dhacaya 22 bishan March. siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame ayaa shaaca ka qaaday in arrin lagu qoslo ay tahay hadalka ka soo yaray Farmaajo kadib fariintii ka timid Mareykanka. sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday uusan sharciyada u haysan in xilligan uu isugu yeero madaxda maamul goboleedyada sidoo hadalku dhigay. waa arrin lagu qoslo in madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday si uu isaga dalfiyo fariinta kulul ee ugu timid wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka in uu uusan sharciyad u haysan oo isugu waco rag maalmo badan magaalada dhinac ka jooga ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo ka mid ah musharaxiinta mucaaradka. shirkan ee uu mar kale iclaamiyay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday ayaa socon doono muddo 2 cisho ah waxaana diradda lagu saarayaa xaaladda cakiran ee dalka.
si kastaba shirweynaha ayaa noqonaya kii afraad ee uu ku baaqo farmaajo tan iyo markii muddaxileedkiisu dhammaaday 8 February ee sanadkan 2021. Deegaanada Somaliland ayaa maanta laga bilaabayaa qaadashada talaalka COVID-19. Talaalkan ayaa la keenay deegaanadaas 2 ber ka hor iyadoo Somaliland ay dalbatay in talaalkaas la soo gaarsiiyo xaddiga dadka uu soo ridanayo COVID-19 dartii. Haddaba maanta ayaa la bilaabayaa talaalka sida ay la wadaageen mas'uuliyiin ka tirsan maamulkaas, waxaana talaalka qofka ugu horeeya qaadanaya uu noqon doonaa sida ay horeyba u sameeyeen madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. Wakaaladaha waxyaabaha Soomaaliya ay ka qorayaan maanta waxa ugu weyn in arrimaha doorashooyinka ay ciwaano kala duwan ay u sameynayaan si ay ugu hadlaan. Waa tahay wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya waa inaga intaa.